madasha shaqo abuurka qaranka Soomaaliyeed war murtiyeed Garowe Puntland Soomaaliya kulanka koobaad ee madasha shaqo abuurka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliyeed wasaaradaha shaqada ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland intii u dhaxaysay 14 ilaa 17 Luulyo sanadka 2019 madasha waxaa ka soo qayb galay wasiirada agaasimayaasha guud agaasim waaxeedyada khibrada wasaaradaha iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir shirka intuu socday waxaa lagu falanqeeyay arrimo badan oo muhiim ah oo la xiriira xoojinta dadaalada iyo jaynta dhalinyarada iyo shaqo abuurka shirka waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan koow in shaqo abuurku yahay muhiimadda koobaad ee qaranka labo waxaa qiimeyn dhab ah lagu sameeyay mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabagaba maraya waxaa la isla gartay in caqabadihii jiray si wada jira loo xaliyo kulihii mashruucana la bogaadiyo saddex in la ballaariyo mashaariicda shaqo abuurka lana gaarsiiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka afar si looga jawaabo baahiyaha ka jira xirfadaha in la soo nooleeyo dugsiyada farsamada gacanta ee dawladdu gacanta ku haysay lana hirgeliyo kuwa cusub shan in la xoojiyo hab maamulka shaqo abuur ee dalka lana mideeyo dadaalada kala duwan ee shaqo abuurka lix in la dhiirigeliyo ganacsiyada waaweyn yaryar iyo hal abuurka dhalinyarada toddobo in maalgashi dhab ah lagu sameeyo fursadaha shaqana lagu abuuro qaybaha kala duwan ee wax soo saarka dalka sideed in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir si joogta uga wada shaqeeyaan mashaariicda shaqo abuurka dalka sagaal madashu waxa ay uga mahad celinaysaa dowladda Puntland gaar ahaan wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha soo dhaweynta martigelinta iyo dadaalada ay gelisay guusha shirka 10 madashu waxay sidoo kale u mahadnaqaysaa hay'adaha UN-ka ee qaybta ka ah mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed 11 gabagabadii madashu waxay ugu dambeyn u mahad celinaysaa deeq-bixiyaasha kaalintii mugta lahayd ee ka qaateen hirgelinta mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna madashu ka codsatay inay sii wadaan taageeradaas dhammaad shirkan waxaa goobjoog u ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland mudane Jaamac Farax Muuse wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland mudane Ismaan Xuseen Xaaji afar wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Sheekh Cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaaleysiinta Galmudug mudane Daahir Farax Fiidow wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Shamsi Ibrahim Maxamed gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Aadan Sheekh Cali Fiidow